الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما waxaynu wax ka oran doonaa zakaatul fitr sakada loo yaqaano zakaat fidriga ilaa 17 arrimood oo ahkaamteeda ayaynu ku soo koob insha Allah magaceeda zakaat fidrina waa la yiraahdaa zakaatul badanna waa la yiraahdaa sakadii jirka zakaatul ru'us sakadii madax zakaatul riqaab iyo sakadii qoorta macnaheedu sakada waxa weeyaan qaybna waxa laga bixiyaa xoolaha qaybna dadka waa tii dadka laga bixinaya tani si kolka loo eegana ramadaan oo waajib ahayd oo ilaahayna waafajiyay ayaynu sadaqana bixinaynaa salaadna tukanaynaa mahadnaqa oo ciid ah sakada iyada ah culimada qaar waxay ku yar ishaaraan aayadaas ku fasiraan qad aflaha man tazakka waxa liibaanay qofka sakaat fidrigi bixiyay wadakara isma rabbi magaca ilaahi sana xusay oo Allahu akbar ciid akhriyay fa salla tukaday salaadii ciidana qodobka horeeya waxa weey taariifkeeda taariifkeedu waxa weey sadaqa la bixiyo ama raashin la bixiyo marka ramadaan laga afuro raashinkaas oo waajiba waxana la waajibiyay sanadii labaad hijrada sallallahu alayhi wasallam markuu nabigu sanad joogay kii labaad baa la waajibiyay arinta labaad waxa weeye sakadan xukunkeeda ma sunna ma faralba horaynu soo sheegnay inay waajibato la waajibiyayba Abdullah ibn Umar wuxuu leeyahay anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam فرض زكاة الفطر من رمضان وحو واجب مدة كغدغاي سكدا لغا افر رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير لبا كيليه بد هذا اما لبا كيليه بد تمره على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين قف كستو حرا iyo qof kasto adoona iyo qof kasto laba iyo ku dhadiga waa qofku inuu muslim yahay qof kasto muslimaba haduu helayo waa waajib xigmada loo jideeyay waa arinta saddexaad xadiis xaakim wariye ala shart al-bukhari inuu sugan yahay in dhahab la waafaqay min xadiis ibn abbas abdullah wuxuu leeyahay قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة للصائم وطعمة للمساكين لو واجبية زكاة ظهرة للصائم قفكي سو منابو إلهي كغا نظيفينيا من اللغو والرفث wixii laga yaabay inay ka dhaceen marka aha hadalkii xumaa iyo gafafki dadka masaakiinta ana waxay u tahay gurmad ducma waa raashin idan marka faa'iido waxay u leedahay shakhsiga faa'iidana waxay u leedahay mujtamaca labada arrimoodba arinta afraad waxa weey calaaman tajibu yaa lagu yeeshaa waxay ku waajibaysaa sida aynu soo sheegnay qofkiiba muslimka aba ee urka ka soo baxay ifka jooga ee Ramadaan iyo ciidana kulmiyay hadduu Ramadaan dhinta laguma leh hadduu ciida dhashana laguma leh labada waa inuu kulmiyaa qofku haddii xaa soo guursatay habeenka ciidda aanay Ramadaan ku soo gaadhin laguma leh labada waa inuu kulmiyaa ila min almuslimiin abu nabigu qayd ka dhigay muslimiinta kamida ayaa asxaabigu leeyahay cid kastoo muslima arinta shanaad ma lagu leeyahay ilmaha yar ee urjiifka ah ama ilmaha caloosha ku jira culimada qayb kamida ama asxaabta way tilmaameen sida Uthman ibn Affan رضي الله عنه يا عمر بن عبد العزيز
oo isaguna khaliifkii qiimaha badnaa iyo aimada qaarkoodba laakiin sida saxda ah waxa weeye ilmaha urjiifka inaan lagu lahayn qodobka lixaad laa yushtaratu fiiha nisaab nisaab iyada waxba looma shardiyo qofka sakaat fidriga lagu yeelanayaa xoolo sakagala inuu haystaa waxba muhiim ah xoolo sakagala inuu haystaa muhiim maahe dee qofkii xoogaa cunadiisa habeenka iyo ciidda ka soo hadha habeenka iyo maalinta ciidda wax ka soo hadhahayaba waa ku waajibaysa arrinta toddobaad wadaynu lmu'ajalu laa yamnacu zakaata alfitr haddii qofka lagu leeyay dayn weli wakhtigeedii aan la gaadhin sakada hor joogsan mayso maalan sanad kadib 6 bilood kadib bil kadib baas ayaa lagaa doonayaa dayn sakaat fidriga waad bixinaysaa u dhigi maysid daynka arrinta sideedaad maa huwa alqadru lwaajib qadarka waajibaya qadarka waajibayaa waa 2 kiiliya bar saac baa leh saac wuxuu ahaa wax sidan galaanka oo kale ah oo waqtigii nabiga saa wax loogu miisi jiray buu ahaa saaco oo dhiilkeennii qoriga ahaa ee geela aynu ku maali jirnay u eg ayaa saac la odhan jiray waxaana lagu qiyaasaa hadda 2 kiilo iyo 176 garaam waa wax la odhan karo 2 kiiliya xoogaa 2 kiiliya bar baynu ka dhignaa siyaadaa la socota qodobka sagaalaad ma la siyaadin karaa sakaat fidriga dii 2 galaan iyo bar lagugu yeesho 2 galaan iyo 200 garaam wax ku dhow lagugu yeesho 2 kiiliya 2200 garaam wax ku dhoweeyey ma laga dhigi karaa 2 kiiliya bar sidaynu inagu ka dhigno ها ولا قدك كراه وإن فاه بعض المالكية مالكية قاركود هبدي ذا علماء المالكية قايب كمدي وحود دليلين لكردين كرا إلهي بأوحد فمن تطوع خيرا فهو خير له قفك سكذا كردية واجب كي لقوا يا شيء في دي صوم كقفك كردية خير بكر صلاة سكذا حوالها مركو النبي وكجود دوما ينكي نافك وين شلس كياني wuxuu waanu ka aqbalay ajrina waad leedahay marka lama oranayo waa cibaado lama korin karo waa cibaado maaliya khayr buu qofkani kordhiyay sadaqa sunnah way u noqonaysaa oo cibaado maxdiya ma aha waa cibaado maaliya arinta toddobaad noocyada raashinka laga bixinayo waxa laga bixiyaa wixii quuda laakiin wixii sharaaba faakihaysiya midhaa ee macnaha khudrada fruutka waxaan la idhaa lagama bixinaya kuwa leanno kayd ma galaan raashinna ma aha marka waxyaabaha berigii hore asxaabtu ay bixin jireen waxaa ka mid ah ama xadiidkaba ku sheegan timirta heedda sabiibka caanaboodhaha baashan la idhaahdo qamadida sarreenka iyo hadhowrka iyo arabakhida ama masagada iyo oo isku nooc ah iyaguna marka shay kasta oo noqon kara raashin ayaa lagu bixinaya saa daraadeed eeg caano boodhi uu ku jira raashinka ilaa caanuhu cunana way yihiin cabidna way yihiin labadaba isku darsadeen aqid baana beriga hore la oran jiray waa caano la qalajiyo aqad waxa marka aan lagu bixinaynin midhihii beerbiyoodka ka soo baxay cambayaashii liintii wixii nooca waxaan lagu bixinaynin bahashii la odhan jiray sonkorta oo sharaaba iyo saliidda oo iidaana kuwaas iyagu maha raashin qodobka 11 hal yajuuzu ikhraaju lqiima lacag ma lagu bixin karaa aimadu may banaynin intooda badani abu xaniifa quraa baneeyo yidhi lacagtaa miskiinka u roon qowlka raajixahina waxa weeye in lagu bixiyo raashin maadaama uu nebiguba sala allahu calayhi wasalam wakhtigiisii raashin ku bixin jiray lacagina jirtay lacagta muu bixinin markaa marka way jiraan culimo dhowrahoo casrigan ahoo le miskiinka waxa u fiican lacagtii oo qowlkii abi xaniife qaatay
imika inaga raashinkuna waa fiican raashinka lagu bixinaya arinta 12aad waqtiga sakadan la yiraahdo sakaat fidriga ugu haboon ee la bixinayo ama ay waajibaysaba culimadu waxay isla waafaqsan yihiin inay waajibayso marka Ramadaan laga afuro ee la dhameystira Ramadaan haday 29 iyo haday 30 waa habeenka ciida markaasay faral noqoto marka habeenka ciida mar haday waajibtay wala bixin karaa subaxa ciidana ka sii fadli badan oo nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu bixin jiray subaxa ciida qabla al-khuruj ila as-salah intaanu salaada tagin sida aayada aynu soo akhrinayna culimada qaar kood ay ku fasireen kunna nukhriju fi ahdi rasuulillahi yawm al-fitr sa'an min ta'amin ayaanu bixin jiray maalinka ciida bayda asxaabtu marka maalin kale hadii la yiraahdo waagu waqtigu bariyo weey arinta 13aad hal yajuuzu ta'jiilu hadhihi az-zakah fi Ramadan miyay banaantahay sakadan Ramadaan dhexdeeda in la sii qadimo culimadu haabay u badan yihiin laakiin qolo waxay leeyihiin Ramadaan dhexdeeda qolana waxay leeyihiin saddexda cisho ugu dambeeya ayaa ka sugmay asxaabtu inay qadimi jireen laba sabab bay leedahay in Ramadaan soo gasho iyo in ciidu timaado labadii mid kamid ah hadii la helay oo inay Ramadaan soo gasho ah wala sii qadimi karaa ayay leeyihiin waa la sii dadajin karaa fi Ramadaan kala du qofkii isaga labada sababide waxa weeyaan inuu Ramadaan soo gashay ka kalena waxa weeye inuu nisaabkii hayo wixii uu ku bixin lahaa labada sabab ku ah arinta 14aad liman tusrafu hadhihi az-zakah sakada yaa la siiyaa masjideedii qolo ee aayada quraanku ay sheegtay suuratu tawba ilaahay wuri inma sadaqatu lil fuqaraa والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل مسجد داس الله قيمنا يسكات فدريا بس قلا قارة علماءه waxa ay u badan yihiin in la siinayo fuqarada iyo masaakiinta sidii waqtigii nabiga baahay sallallahu alayhi wasallam oo aan ku daymoobay iyo musaafir iyo waxba la daydayn maadaam du'matan للمساكين ونبي يقول وحي راشينو تهي مساكين تكلا دوري فقير يا مسكين لبدا صوبا لسين دونان لكن سيدات دي كلا وحبا لدوندوني مايو هديجي سنة ساسوها رسولك صلى الله عليه وسلم دقا كيس سكذن يدا هداينو أرقناي دادكي لسيني مصرف كيدا هاميشا لغو بحينيو يا ند سين كرينين أدوغو مزكيجي هدات qofkii bixinay hadaad dadkeedana siin karay ila sakada xoolaaba waynu soo marnay kuwaana si kuwana hasiin kuwii la siinay tan soo aragnay yaa la siinay waxaan la siinaynin dadkii loo diidi jiray sakada xoolaha oo koow ay ka yihiin aalu beydka rasuulka sallallahu alayhi wasallam nabiga xigtadiisa iyo qofkii aan muslimka ahayna gaalka ahaa iyo qofkii maal qabeenka ahaa xoolo isagu haystay da iska wanaagsan oo masaariiftiisa haystay iyo adigaaga bixinaya caruurtaadii iyo kuway sii dhaleen waalidkaagii iyo kuwii ku dhalay aduu dadka dhashay iyo dadkay dhaleen waxa inta lagu daray xaaskii oo iyadana aanad siinaynin sakada arinta 17aad هل يجوز نقل هذه الزكاة سكذا انت قبل لغا قاده قبل كلام يا لغين كرا تا waxay kala mid tahay sakadii xoolaha oo ha asalku waxa weeye sakaat fidriga in lagu bixiyo halka joogto laakiin halka joogto hadaan raashin looga baahnayn ama fuqaraba aanay jirin ama yar yihiin meelaha kale baahan baa la geyn karaa dadkeena dabadaha jooga waxay koonayaan raashin cid aanu siino qaadanaysaa ma jirto marka halkan ay u soo diri dadkan baahan raashinka u baahan arinta 18aad in ku soo gabagabeynaa waxa weey sakadani hadii ay qofkii bixin lahaa dhaafto maalinkii ciida maxaa la yeelaya dad baa ilaa waday mayay ka dhacaysaa mise uu soo qalaynaya shaygu hadduu faral yahay oo uu ku dhaafo waqtigiisii waa la qaleeyaa salaada soomka sakada
waa la qalaynayaa gashimo duugoobo deynta ilaahay kaama dhacayso sida ugu dhaqso badan baad markaad xusuusato ayuunbaad ku bixinaysa laakiin laba arrimood midna ma jiro oo arintaynu kusoo gabagabaynayno mar kale in sekadii oo aan lagugu lahayn aada soo amaahato macnaha waxba isku kalifi maysid inaad sekadii soo amaahato oo tidhaahdo wallaahi dadkii wada bixiye aniguna aan soo amaahdo amaahdaasi meesha iska jooji amaahdu waa musiibo amaahdu waxay ka mid tahay balaayooyinka la iska ilaaliyo shaydaanka la iska naaroo kale nebiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka magan galay min almaqrami waalma'ham dembiga iyo deynta markaa iska jeclaysana xoolaha dadka taasi waa mid uma soo amahanaysa arrinta kale aynu baraarujin laha waxa weeye dad badan baa guryaheenna jooga intaad beelinaysa unbay kugu waajibaysa inta masruufkooda lagugu leeyay ayay kugu waajibaysa dad badan oo wax kula cuno xaafadda kula joogo ehelkii asxaabta ama xaaska ehelkeeda hadday hayaanna way bixin haddii aanay hayna dhib ma jiro hadday dhacdo qofku inuu iska bixiyanaas ma noqonayso wax la deedifeeye sadaqay noqon dee ila faral kuguma hayne mararka qaarkood baa laga yaabaa ehelka haddaad qaar ka reebto inay yidhaahdaan annaga waa nala taseeyey cidibadan nagama leh sekadii ilaahayna laga bixin waa ilan jahligu waa musiibo qofka jaahilka ahi wax yarna wuu weyneeyaa wax weynna wuu yareeyaa marka hadday 10 qof yihiin oo adigu 6 ka mas-uul tahay 4na aanad mas-uul ka ahayn dihaafka bariiska iskaba bixi soo 25 kiilo maaha 25 ka iska bixiya ma idinkana waan idinka bixiyay dhe qalbigu ha wanaagsanaadee labaataneyada qodob baynu ku soo koobnay axkaamtii sakaat fidriga oo dhan sidaa daraaddeed su-aalaheedu waa inay iska soo ururaanoo qofkuna sekadan uu ilaaliyaa wakhtigeeda arrinta kale baraarujin lahaa waxa weeye ma jiro wax la yidhaahda iisii guddoon aan idhaahdo hebel u guddoon ma jirto qofku isagoo bixinaya qof maqanna doonaya inuu siiyo ayuu odhanayaa mid halkan jooga kaalay hebel u guddoon sooma dhacdo hebel kaalay u guddoon hebelkan guddoomaya miyuu soo diray ka loo guddoomayaa maya markaa ma ansaxayso kumay dhaafin bay ka dhigantay adiga sekadii kumay dhaafin adiga iyo kanaad tidhi guddoon isku meelun baad joogtaan isku cidun baad tihiin marka waxaa laga maarmaana qofkii inuu ama yimaado ama wakiil soo samaysto oo idhaahdo hebel iigu dhiib hebel baa iga wakiile sharciguna wuu aqbalaa wakaaladda waxaa la idhaahda marka kii wakiilka ahaa ama gabadhii ka wakiilka ahayd intay timaaddo way odhan kartaa sekadii sakaat fidrigii hebel ama heblaayo keen waa odhan karaa qofkaas laakiin haddaad halkaa u dhigto qofkii oo tidhaahdo hebel baa u guddoomay ama hebel baan la sugayaa waktigeedii faralkaa waa dhaafis waa salaadaad waktigeedii dhaafisay oo kale waxaa dhici kara dadka arrin kale aynu ku darayno wey inagoo ka duulayna su-aalaha inagu soo noqnoqda dadka debadda waxaa laga yaabaa qof ninku inuu debadda ka shaqaysto xaaskiisa iyo ciyaalkiisuna halkan ay joogaan sidee buu u bixinayaa de xaaskunbuu wakiilanayaa wuxuu leeyahay sekadaadii iyo sekadaydii iyo tii ciyaalkaba adaan heblaaya ku wakiisha ee inaga wada bixi afka bariiska ama gadbadda bariiska ah hana odhanin dee dumarka lama wakiisho iyo wakaaladiyo kama ansaxdaha odhan siday soomaalidu u yidhaahdaan waxay gowracaanba ma ansaxa dumarku sayladaba kala barh baa wixii adhi oo dhan dumarkaa inoo gowraca ha khaldamin dumarka ha tasaynin arrinkooda uu tiirsan yahay markaa arrimahaasina waa arrimo aynu ku sii dari lahaynoo qaladaad uu ka yimaado xagga sakaat fidriga marka xalku waxaynu kusoo ururinaynaa iska diyaar aha raashinkaaga dhigo timirtii bariiskii baastadii daqiiqdii caanaboodhihii waxyaabaha aynu cunno ee wanaagsan waxba qamadi iyo ha ku cararin arabakhi afdheerehe dadka lama caameeyo lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ilaahay baa wuxuu ihi samafalka aad doonaysaan gaari maysaan iyo wanaagga jeero wax ka bixisaan waxaad jeceshihiin marka adiga wixii min awsadi maa tudcimuuna ahliikum buu ilaahay ka warramay kafaara gudka marka bixinaysaan ka dhexe bixiya buu reeriina siisaan marka kaa wanaagsan ayaynu bixinaynaa xataa haddii aad
basmaatiga iyo bariiska soo maaha laba dabaqadood ama saddex nooc buu dee bariisku ka yahay mid reer miyigaa qaata mid waa gantafuuri mid kale waaba kii baasarca ahaa iyo basmaatigii aada u fiicnaa kaa fiican qaad laga yaabo gadbadda in la siiyo $30 ama maaragtay mar walba cibaadadan wanaagsood ku xaragootoba adigaa sii qurxistay wixii faralka kaa gudi lahaa mulaaxadaadka iyo arrimaha aynu tilmaamaynaana waa mashaakil iska jira marka waxaagii adigoo diyaarsaday qofka la ballan wakiilka ama qofka qaadaya subaxa ciidda ay kaalayna way hore u soo fadhiyaan dadkeena iyo ciid in loo dabaal dego wax la yiraahdo ku qufulan dadna wuxuu qoray adeer caawaysi adeer rabadaan intaan aan imkaysi aan ku soo haleeli maaye iska tagna hadaba qaarna haleelaya jire qaarna haleelaya adigu waxaad ku dadaalaysaa maslaxadaada aniguna maslaxadayda waxa weeye faralkani waqtiga uu galo ugu fiican inaan ku siiyo subaxa ciidda markay soo yara mar qof soo diro sidaas maaragtay laga dhigayaa axkaamteedu caynkaas way markaynu intaa ku soo ururino way nagu filan tahay allah inagu anfaco dambigeena iyo kii waalidkeena allah ha dhaafo berita waxay u badan tahay inay noqoto ramadaan laabta u sii daaya كل أرجع كحرين وشرعي وأرجو إن صار لكن قلادي آت كأباري فلكيين تها وحيلاقي بيشو قلبت وحيقرح ذا بكه الرئيسة لحية 8 دقيقة لحية 8 دقيقة قرح ذا كل جيده بيش بكسيه الرئيسة إلا وحي وين موضعنا هذا لسي أركياي ساعة دنبنا وحيكدم بينيسا نص ساعة لبض الضياحي مساو الحياة 45 daqiiqo soo ma marka galabta 16 markay ka horeyso saa dambena waxay ka haraysaa nus saac marka wala arki karaaday leeyihiin waa ma suuragal ah in la arkay leeyin galabta sida daraadeed waxa aynu iclaaminayna maaha laakiin waa sida la filayo ee ugu badan weey sida la filayo hatta de lagu ma arki karo wala arkayaa inay ka horeysay maxaa laga daydayda sharciguna de wuxuu nasaaray markay ka dambayso marka taasina kulay waynu iska wixii gabagaba ahkaamta ciida iyo wixii la xiriirayno 10 kan ku xiga ka dhigan doona insha Allah وهذا ما أقوله وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته